dowladda Faransiiska ayaa dalalka bariga dhexe ugu baaqday inay ka hortagaan dukaamada iyo ganacsiyada qaadacay alaabaha dalkaas kadib markii uu madaxweyne Emmanuel Macron uu difaacay in la baahiyo sawiro lagu tilmaamay in laga matalayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegtay in baaqyada lagu qaadacayo alaabta Faransiiska lagu sheegay go'aanada runta ka fog oo dabada ka riixayaan dad xag jir ah oo kooban. waa sida la yidhi alaabaha Faransiiska ayaa laga saaray dukaamo ku yaala Kuwait, Urdun iyo Qatar, halkaa oo dibadbaxyo kooban oo Faransiiska ka dhana ay ka dhaceen Liibiya. faalooyin uu bixiyay Master Macron kadib markii dilkii loo geystay macallin Faransiis ah oo sawir gacmeed uu muujiyay isla markaana uu ka matalayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee uu tusay ardaydii fasalka ku jirtay. madaxweynaha ayaa shaaciyay in macallinka lagu magacaabi jiray Samuel Paty loo dilay sababta ah islaamiyiinta waxa ay rabaan in uu markaasi mustaqbalkeena ku lumiyo, laakiin Faransiiska kama quusan doono sawir gacmeedyo iyo waxyaabo la halmaala oo looga hortagayo. waa sida uu madaxweynaha dalkaasi yidhi. sawirada nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ay muslimiinta u horseedi kartaa ciqaab culus sababtoo ah islaamku waxa uu si cad u mamnuucay sawirada Nabi Maxamed iyo Allah subxaanahu wa tacaala. laakiin cilmaaniyiinta dalka Faransiiska ayaa waxa ay udubdhexaad u tahay aqoonsiga qaranka Faransiiska. Faransiiska ayaa sheegay in xakamaynta xuriyatul qowlka si loo ilaaliyo dareenka kooxda gaarka ah ay wiiqayso midnimada dalkaasi. axadii Master Macron waxa uu laba jibaaray difaacyada qiimaha Faransiiska, waxa uuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu ku yidhi isma dhiibayno weligeen. qaar ka mid ah goobaha laga dukaamaysto ee dalka Urdun, Qatar iyo Kuwait ayaa ilaa iyo axadii laga xayuubiyay alaabtii Faransiiska ee halka lagu iibinayay. tusaale ahaan tilmaamaha macmalka ee lagu sameeyo Faransiiska iyo waxyaabaha la isu qurxiyo. ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa warqad uu u qoray milkiilaha shirkadda Facebook Master Mark ayaa waxa uu uga codsaday in shirkadaha laga mamnuuco qoraalada ama hadallada ku saabsan islaam naceebka. warqadda uu Master Khan u diray milkiilaha Facebook waxa uu ku sheegay in ay sii kordhinayaan wararka la xiriira islaam naceebka, tallaabadaasina ay horseedi karto naceeb, xagjirnimo iyo qalalaase dhammaan inta ay ficiladaasi ka idlaanayaan ama meel laga marsiinayo in laga sii mamnuuco baraha bulshadu in la sii dhigo. ayaa waxa uu markaasi baaq ahaan u jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan, ninka markaasi iska leh Facebook-ga. sawirada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee waxa ay muslimiinta u horseedi kartaa ciqaab culus sababtoo ah islaamka waxa uu si cad markaasi u mamnuucaya sawirada nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabo laga matalo in la soo dhigo baraha bulshada iyo meelaha kale. laakiin cilmaaniyiinta dalka Faransiiska ayaa waxa ay udubdhexaad u tahay aqoonsiga qaranka Faransiiska. Faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in xakamaynta xuriyatul qowlka si loo ilaaliyo dareenka kooxda gaarka ay wiiqayso midnimada dalkeeda. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron, taasi oo ku saabsaneyd siyaasadaha Macron ee ku wajahan muslim diidka. Master Erdogan ayaa carabka ku dhuftay in Master Macron uu u baahan yahay in baaritaan dhanka maskaxda ah lagu sameeyo. Macron iyo Erdogan ayaa iyagu ku muransan xuquuqda biyaha bariga badda Mediterranean-ka, Liibiya, Suuriya iyo muranka ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaalka u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia. haddaba maxaad ka oran lahayd madaxweynaha dalka oo malaayiinta diinta haysata ay ku dhaqmayaan sidaana markaa u hadlaya? marka hore baaritaan dhanka maskaxda ah isku soo samee
waa sidaasi madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan isagoo intaas sii raaciyay master Erdogan khudbad uu jeedinayay isla markaana uu ka jeedinayay magaalo la yiraahdo Kayseriya oo ka tirsan dalka turkiga in loo baahan yahay in baaritaan gaar ah lagu sameeyo madaxweynaha dalka Faransiiska. sidoo kale maxaa shakhsi ahaan lagu magacaabi karaa master Merkel oo daba dhigtay islaamka iyo muslimiinta ayuu markaasi isweydiiyey master Erdogan. hadalhaynta xoogani ayaa ka dhalatay khudbad madaxweynaha Faransiiska uu kaga hadlay arrimaha islaamka taas oo shaaca uu kaga qaaday qorshe uu ku doonayo in uu ku meelmariyo sharci adag oo uu tibaaxay in uu ku xakameynayo waxa uu ugu yeedhay muslimiinta gooni ugoosadka ah si uu u difaaco mabaadi'da cilmaaniyiinta. haddaba dalal badan maadaama ay ku kacsan yihiin dalka Faransiiska isla markaana ay mamnuuceen wax kasta oo dhanka ganacsiga ee ka yimaada dhanka Faransiiska ay ka joojiyaan dalkooda in lagu iibiyo, ma laga yaabaa in Soomaaliya iyana ay qayb ka noqoto maadaama lagu guda jiro bishii uu dhashay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah bisha Mawlid.